walaalayaal inagoo og qiimaha ay leedahay sadaqada iyo waxbixin iyo dadka baahan oo wixii ay u baahan yihiin laga saaciidaa ajriga iyo abaalmarintay leedahay inagoo og haddana bisha Ramadaan waxa weeye meelaha waxyaalaha khayrka ah ee la qabto la laban laabo ajrigooduna uu badan yahay waana shahrul juudi weeyaan waa bishii deeqda nabigeennuna sallallahu alayhi wasallam isagoo deeq badan haddana wuxuu ugu sii deeq badnaa ugu sii waxbixin badnaa ugu sii sadaqa badnaa waxay bisha Ramadaan marka inaynu ku dayano oo sadaqadeena iyo waxbixinteena aynu laalaabno arrin laga maarmaan weeye waa mid muhiim ah dadka wixii karaya waxbixin karaya ayaguna inay aad iyo laxaad u sii laban waxyaalaha bisha Ramadaan waliba ugu wanaagsan waxa kamid ah afurinta dadka Soomaaliyeed waxba haysanin la afuriyo walaalaha jamciyadu saacid al-khayriya oo runtii dhowrkii sano ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ka fulinayay barnaamijka afurka oo intay soo diyaariyaan marka dadka muxsiniinta ayana ay ku caawiyaan lagu gacan siiyo dadka markaas xanuunsanaya dadka marka baahan ee aan waxba haysanin iyadoo safaariya inay suuqa ugu qaybiyaan oo ay ku siyaari ku gaarsiiyaan marka walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaanba waxaanu u soo jeedinaynaa inay wixii laga tari karo iyo wixii markaas lagala qayb qaadan kara hawsha weyn ee muhiimka in lagala qayb qaato oo lagu taro walaalayaal meel kasta joogtaanba ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinku caafimaad yeelo dambigeena Allah ku dhaafo ceebihiina oo dhan Allah asturo jamciyad saacid al-khayriya oo xaqiiqatan bishan khayrka badan ee Ramadaan iyagu ka qayb qaata inay dadka afuriyaan ilaahay dartii subxaanahu wa ta'ala maadaama aad garanaysaan bishan Ramadaan inay tahay bishii dadku ay khayrka u tartamayeen muslimiintu meel kasta ay joogaanba ay khayrka u jajaban yihiin oo waliba ay u tartamaan oo ay nabigooga ku dayanayaan sallallahu alayhi wasallam waxa inagana la inaga rabaa sidoo kale inaynu walaalaheen kala qayb qaadano oo aynu tartanka iyaga la galno oo aynu dhinacooga xoojino walaalayaal khayrka in la isku kaashado oo la isku garab galo ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inna faray jamciyad saacid al-khayriya oo ka shaqeynaya dadka Sooman inay afriyaan qofka qof Sooman afriya ajarkiisa oo kale oo dhameystiran buu helaya iyadoo marka walaalayaal walaalaheena isxilqaamay arrinka aadka u qiimaha badan u kacay waxa aan ugu baaqiyaa dadka muslimiinta ah ee awood leh inay kala qayb qaataan arrintaasi oo ay ka caawiyaan iyagoo nafahooda u shaqeynaya runtii oo khayr iyo wanaag u kasbanaya dhammaan uga soo gudbinaya walaalaha khayrka jecel waxa aynu bilownay barnaamijkii afuri walaalkaaga Sooman in helin wuxuu ku afuro wana barnaamijkii ay soo bandhigi jirtay jamciyadu saacid al-khayriya oo runtii hore uga barateen in fara badan shaashadana uga daawateen iyadoo qaybinaysa barnaamijkaas iyo afurka waxa weeyse joogtada u ahaa wabil ajarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka u badiyo samafalkana marka laga qayb qaato jamciyada ila saacid oo mudaba soo waday iftaaru saaimin yani quudso dadka masaakiinta mudabadana ku soo dhex jirtay Ramadaan tan imakana arintii way sii wadaa oo ku jirtaa waxaan doonayaa in laga qayb qaato Ramadaan tan waliba duruufo kale oo adag baa jira barakallahu fiikum laga qayb qaato al-isgarab taago alla shaqeeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay man aftara saa'iman falahu mithla ajri qof afuriya muslina waxa uu Sooman ajarkiisa oo kala buu leeyahay kiisa naxwa laga naaqsimayo kana waxa weey isna ajar lamida ayuu helayaa walaalaheena jamciyadu saacid al-khayriya oo runtii u taagan in ay caawiyaan walaalaha muslimiinta gaar ahaan bisha Ramadaan xagga ifdaarka waxa aynu aad u jecelahay inaynu ka wada qayb galno oo aynu caawino oo aynu ku garab galno barnaamijka khayriga ay taagan yihiin iyagoo runtii Ramadaan badan sidaasi sameeya oo Ramadaantii hore baan ogaa inay sidaasi sameeyeen oo ilaa dhowr boqol oo ruux ay markaasi afuriyeen ama ay iftaarkiisa diyaarinayeen taasina ay tahay wixii idinku walaalayaal caawimo kaga qayb gasheen waxa aynu dhiirigelinaynaa in dadka la afuriyo iyadoo ajarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala la boobayo nabigu wuxuu man fatara saa'iman qofka qof afuriya ajarkiisa ayuu yeelanayaa waxba laga nusqaaminayn
waxaa ka sugnaaday nabiga inuu dhowlo bishiqi tamra marka walaalayaal jamciyatu saacid waxaa runtii gacanta ku haya walaalo aad u khayr badan runtii waxaan ku talinaynaa ama ku boorinaa dadka in afurkaasi laga qayb qaato walaaluhu ay wadaan waxaan rabaa inaan walaalaha saa'imiinta ah ee muslimiinta ah la wadaago hal xadiis oo aad iyo aad u qiimo badan kana hadlaya mowduuc aynu aad iyo aad ugu baahannahay bulshadeenu guud ahaan gaar ahaanna dadka jilicsan ee u baahan yihiin waxaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka sugan inuu yidhi man fattara saa'iman غفر الله له ذنبه أدخله الجنة وجعل له أجرا كأجر الصائم